Assalaamu calaykum. Waa mar kale iyo channelkeena tutorial iyo cashirkii ugu horeeyay ku qaadan doono video editing-ka. Haddaba waxaa jira software badan oo lagu qurxiyo video-ga ama aad ku hagaajin karto video-gaaga, kuwaasi oo midba uu leeyahay nidaam u gaar ah. Hase yeeshee waxaa jira software dhammaantood kulmiya oo haddii aad si fiican u barato ay ka dhigan tahay inaad mid walba wax ka taqaano, kaana kaafinaya inaad u baahato software-da kale. Software-kan xilliyadan aynu joogno adduunka oo dhan ayaa laga isticmaalaa, waana software-ka ugu wanaagsan qof walba video editing lagu qiimeeyay, waana ka aynu ka diyaarin doono ama aynu ku baran doono video editing-ka. Magaciisana waxaa loo yaqaanaa Premiere Pro. Sanad walbana waa la update gareeyaa, taasoo micnaheedu tahay in sanad walba lagu soo daro wax cusub. Haddaba haddaynu cashirkeena bilowno aynu gudaha u galno, waxa uu ka bilaabmi doonaa base-ka. Weydiiyo dad badan oo soo codsaday in base-ka looga soo bilaabo, baynu u tixgelin doonaa codsigooda. Kadibna base-ka ayaynu ka bilaabi doonaa. Premiere-ka marka ugu horeysa aad saa u soo furto, waxaad arki doontaa 4 qalcadood inuu leeyahay. Tani waa project-kii, tana waa source-kii, tana waa sequence-kii. Labadan kalena waa sequence oo midna video-ga aad hagaajinaysaa ka daawanaysaa, midna waad ku hagaajinaysaa. Haddaba video-ga waxa qofku marka ugu horeysa isweydiinayaa sideeba video-ga loo soo geliyaa Premiere-ka marka uu furmo. 3 nooc ayaa jira, 3 nooc oo u soo gelin karno Premiere-ka video-ga. Haddaba soo gelinta ugu horeysa waxaanu sameynaynaa qalcadda project ay ku qoran tahay baynu dhamal click siinaynaa. Wuxuu si toos ah inoo geynayaa memory-gii waxaad ka dooranaysaa meesha uu ku yaalo video-ga aad inaad hagaajiso rabto. Aniga wuxuu ii yaalaa video-giska baan tegayaa, open baan siinayaa. Waad aragtaa daawade wuxuu ii soo dhigay project, meeshii project-kii uu video-ga hore soo dhigay. Qaybta labaad waxaanu sameynaynaa, waxaanu tegaynaa fileska ama meesha ay ku qoran tahay file. Waxaan ka dooranaynaa important markaan ka doorno si toos ah waxaan u tegaynaa meeshuu inoo yaalay ama memory-gu ina geynayaa. Kadib waxaan ka dooranaynaa meesha uu video-gaagu aad hagaajinaysaa uu yaalo. Video-gana waad soo open gareynaysaa. Open markaynu idhaahno wuxuu noo soo dhigaysna project, meeshii project-ga. Qaybta saddexaad si toos ah baynu memory-ga u gali doonaa. Video-gan click soo siin doonaa oo right click baan odhan doonaa. Kadib baynu soo qaadi doonaa Premiere-kan soo dhex dhigi doonaa. Meesha ay project taalo baynu dhigi doonaa. 3 nidaam waa 3 lagu soo qaato video-ga. Markaad doonayso inaad video soo geliso, video aad hagaajinayso aad keento Premiere-ka dhex keento, 3 nooc oo soo qaadan doontaa kii ku fududaada adiga. Hadda waxay noo tahay video-ga markaynu jarjarayno ama markaynu laba video isu geynayno, qaabkee isu geyn karnaa, hakadyada iyo go'go'a dhex galayana sideen uga saari karnaa. Marka ugu horeysa waxaanu soo qaadanaynaa video-gii waxaanu geynaynaa source-ka. Markaynu jarjarayno source-kaan geynaynaa. Source-ka baynu kaga reebi doonaa wixii qalad ee video-gaas raacsan ama soo raacay. Iminka video-gaas waxaan rabaa inaan ka jaro intaa qosolka ay ku jirto oo la cadayntu baynu ka goynaynaa. Halkaas aynu ku jaraynaa. Halkaa markaynu ku jarno waxaan gaarsiin doonaa meesha uu video-ga nuxurkiisu ku dhammaanayo. Halkaas baynu isna ka soo jaraynaa. Video-gii baynu soo qaadaynaa, waxaanu keenaynaa sequence-gii. Qaybtaasi waa qaybta sources-ka aad ku soo kala reebayso video-ga soo jarjarayso. Video jarjaran oo diyaarsan baad keenaysaa sequence-gii. Qayb labaad baa jirto inuu u jarjari karno. Waxaan sameynaynaa si toos ah baynu u soo qaadanaynaa video-gii, sequence-gii inuu meel kala geeyna sequence-gii keenaynaa. Kadib isla sequence-gii baynu kaga jaraynaa wixii dheeraada ee maaragtay ku jira video-ga. Inagoo isticmaalna sakiintaan kala gareynaa. Halkaas aynu ka jarnaynaa wixii qalad ah. Markaynu ka jarno baynu ka dhigi gareynaa intaa delete baynu siinaynaa. Xagga dambena waxaynu ka jaraynaa wixii dheeraada. Delete baan iyadana siinaynaa. Inuu isku soo xiraynaa labadii video.
qaybtaasna waxa weeyaan markaad doonayso inaad videoga jarjarto labada dhinac baad soo jarjari kartaa. Videoga waxa raaca khaladaad baa raaca, khaladaadkaas aad uga reebtid ama qaybta sequence-ga waxaan ujeedaa qaybta sources-ka baad gelinaysaa, videoga soo jarjaraysaa, videoga jarjaran oo ku nidaamsan baad keenaysaa sequence-ga. kadibna wixii aad ku dari lahayd qoraalka iyo haddii codka aad ka bedeli lahayd nidaamyadii kale baad u gudbaysaa. ama videoga adoon geynin sources-ka baad si guud u soo qaadanaysaa, sequence-gii baad keenaysaa, isla sequence-gii aad markii horeba ku hagaajinaysay videoyada wax kaga dardaraysay baad ku nidaaminaysaa, waad ku jarjaraysaa kolba kii adiga aad jeclaatay aad fududaysato. horaan uga soconno. hadaba labadii video marka la sugeeyo ama labadii video marka la ag dhigo waxaa jiraya gaf inay sira gafaan, waayo labadii video laba sibaa loo kala duubay ama kamaradii intaad qayb duubtay qaybtii kale aad ka geysay, sidaad isku waafajin kartaa labadii video ay u noqon karaan sidii laba video oo hal kamaradii mar quraata wada duubtay. waxaan sameynaa marka horeysa waan magnet gareynaynaa videogii dambe iyo videoga hore meeshuu ku dhammaado iyo videoga dambe meeshuu ka bilaabmo baynu isku xiranaa, isagoo isku magnet gareynayno uu magnetkaasi noo sheegayo in labadii video si is haystaan. waad aragtaa inay isdhaaf leeyihiin, isdhaafkaas aynu uga saarno aynu magnet gareynaa marka ugu horeysa. waan magnet gareeyay kadib waxaan sameynaynaa transition bay dhex gelinaynaa dhexdooda, transitionkaas wuu weyn yahay ama wuu badan yahay, kadib waan yareynaynaa. weeryahay balaan eegno in yaro waxaa ku jirta isdhaafa ama in wax lagu dhex daray la fahmayo, waxaan sii yareynaynaa transitionkii waan yareynaa, intaasaan ku daynaa. waad aragtaa videogu si toos isku qaatay, waxaad moodaa si hal video oo mar la wada duubay. haddaba waxaa jira labadaas shay marnaba inay kaa xirnaadaan ma fiicna, waayo videoyada khalkhal baa kaa galay hadday kaa xirmaan. mid waa kan oo wuxuu ka dhigan yahay waa unlinkiga videogii aad maaragtay isla socday, codkii iyo iskula socday iyo muuqaalkii isla socday buu kaaga kala dhigayaa laba. oo markaad ka qaado tigta ama aad iska xidho waxaad heli kartaa ama videoga maad qaadan kartaa muuqaalka oo keliya oo codkaad ka tegi kartaa, ama codkaad qaadan kartaa muuqaalkaad ka tegi kartaa. labadooda marnaba kuma wada shaqeynayaan. sida tan imika kale waxaan qaaday muuqaalkii quraata, waad aragtaa inuu tigtu ii saaran tahay. markaan xidho ama aan furto waxaad arkaysaa in labadiiba aan wada qaadan karo. kaasi waa ka koobaad. kan labaad waa kaa ay ku qoran tahay magnet. waa magnet weeyaan, labada video isugu kaa nabayaan oo wixii khalada ama wuxuu ku ogeysiinayaa in labada video wax u dhexeeya aysan jirin. haddii aan xidho oo kaas imika haddii aan xidho magnetka xidho waxaad dareemaysaa in videogeygii codkii aan wada watay inay si toosa u dhaafayaan videoga kale, isagoona kuu tilmaamin wax isku xirmaya iyo wax kala xirmaya. markaan ka qaado tigta waad aragtaa si toos u dhaafaya videogii kale ayuu si toosa dhexgalayaa, kumana tilmaamayo in labadii video isku naban yihiin. laakiin markaan furo waad aragtaa labada dhibcood ay siinayo waxay tilmaamayaan inay labadii video si toosa isugu xiran yihiin. labadaasna waa labada aad ku fiican inaad iska xidhin oo kuu funaadaan, maadaama ay u yihiin videogii wixii aad hagaajinaysay muhiim. aynu ka gudubno waxaan u gudbaynaa qaybta codka. video wala duubtaa wuxuu leeyahay moog ama isdhaaf, laba samecad in ka wada baxo isdhaafo. si aad uga saarto labadaas waxaad sameynaysaa right click baad odhanaysaa, videogii baad right click siinaysaa. markaad right clickiso waxaad tegaysaa audio channels baad tegaysaa. audio channelka markaad tagto right wuxuu ku siinayaa laba mid, left iyo right, labadaba
tigta raadkuna dhinac bay tig u leedahay raadkuna dhinac bay tigteeda u saarantahay. Markaa labadaa mid ahaan baad saaraysaa tigta. Iminka raadkeenu saari doonaa dhinaca isku raacin doonaa dhinac level ama joogutax dhinac isku raacin doonaa, kadib mookadu way ka bixi doontaa. Okay, ma siinayna mookadii inay ka baxday waad arkaysaa. wax mookii ma saarna, codkiina same buu noqday. waxaa inoogu xigta markaad rabtid videogaaga inaad cod ahaan u soo qaadato iyo inaad markaad rabto inaad codka iska reebto ood u soo qaadato video ahaan. waxaan sameynaynaa markuu sequence-ga inoo yaalo, sequence-ga markuu inoo yaalo videogii waxaan odhanaa qaybta videogii ku sawiran tahay baynu soo jiidaynaa. halkan aynu keenaynaa new sequence-ga. kadib waxaad arkaysaa inuu videogii quraatay soo qaadnay wixii videogii quraatay codkii meesha ka baxsan yahay. haddii sidoo kale aad u baahan tahay inaad codka quraata soo qaadato oo videogaaga codka unaad ugu baahan tahay, sida waxaanu sameynaynaa iska dhigid gareyna kan isla videoga meeshii yaala baynu qaybta codka drag audiation only ay ku qoran tahay inuu soo jiidaynaa. isagana waxaad aragtay in codkii oo quraatay inoo soo yimid meesha codkii oo quraatay. labadaa nooc baynu soo kala qaadan karnaa. haddii laftiga ay rabno inaan videoga codka wada qaadanana, videoga dusheeda ama sawirka dusheeda baynu soo qabananaa, right click baan odhanaynaa, si toosaan u keenaynaa meeshii labadii video is wata baa iyaguna xaggan imanaya. Okay, aan ka gudubno qaybtaasina qaybta videoga loo kala qaado. haddaba waxaa jirta nidaam haddii videogii aad videoyadii dhammaysay oo meel dhigatay oo isleedahay codka un hagaajiso videogii kaa raacin, waxaad samayn kartaa waad qufuli kartaayo waa ka qufulku bartaa inoogu yaala. qufulkaas aynu tig saaraynaa. waxaad aragtaa inuu qufulmay oon la taaban karin, kilikna la siin karin, maaragtay si kalena loo qaadi karin. codkana waxaad arkaysaa inaad taaban karto, sidoo kale codkana aad qufuli kartaa. isna codkana kuu qufulmayaa waa markaad videogaaga uu dhammaystirno ama codkaaga kuu dhammaystirno ood rabtid inaad videoyada wax ka dhex saarto ama codka yara hagaajiso ama videogaada yara hagaajiso baad iyagana u isticmaalaysaa qufulkaas. aad baad u mahadsantihiin daawadayaal. intaa waxaynu kusoo dabagabin doonaa daahibe furkii barashada Premiere-ka oo aynu kusoo qaadanay base-ka. waxaanu dib ka diyaarin doonaa qaababka qoraalada loo qoro green screen-kana looga saaro videoga. daawada haddii ay tahay markii kugu horeysay fadlan subscribe channel-ka, like-na saar. aad baad mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi